السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقال أرجح يعبسي جليي إسرائيل أيا كإيمان يوجدها قزا وحال أركيا جوارد دجالك يعيد ماذا حماس أو نح صعدة جودها قزا يوجو سويا أمن جود قزا sidoo kale Hamas war ay soo saartay caawa waxa ay ku sheegtay inay cafis u fidinayso dhammaan burcadii dhibaatada ku haysay gudaha Gaza intii ay militariga Israa'iil dadka reer Gaza dhibaateynayeen oo ay ku jiraan kooxdii Yasir Abu Shabaab cid walba oo sidii soo dhibto hub kana dhigto waa la cafinaya ay leeyihiin warbixin ku saabsan xaaladda guud Gaza iyo waxa hadda ka taagan iyo muuqaalada cajiibka ah caawa ka imanaya gudaha Gaza ayaan isdul taagi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamid ah muuqaal aad iyo aad warbaahinta baraha bulshada loogu faafiyay ayaa ka imanaya Gaza reer Gaza oo waqooyiga Gaza ka qaxay markii ay ciidanka Israa'iil dagaalka bilaabeen ayaa waxa uu ku soo noqday gurigiisa meeshaasi wax yaab leh ayaa ka dhacay muxuu aabaha la kulmay macluumaad cajiib oo arinta ku saabsan ayaan isdul taagi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto waxa iyana kamid ah Afghanistan iyo Pakistan dagaal culus ayaa dhex maray waxa la gubay saldhigii ugu muhiimsanaa ciidanka Taliban ee ku yaalay magaalada Kandahar dab iyo holac ayaa halka ka socdo ciidamada Pakistaaniyiinta ayaa isticmaalay diyaaradahoodii casriga ugu dambeeyay halkaas oo ay bambaanooyin khatar ah ku garaaceen gudaha dalka Afghanistan Taliban ayaa iyana sheegtay in ay gubtay saldhigii ugu muhiimsanaa ciidanka Pakistan ee ku yaalay dhulka xuduudda ee dagaalka uu ka bilowday laakiin Taliban hadda waxa ay leedahay waxaynu ka fakaraynaa inaynu dagaalka joojino sababtu maxay tahay yaa soo dhaxgalay magaalada Gaza waxa ka imanaya muuqaal gudaha Israa'iil caraweyn ka dhaliyay gaar ahaan ciidanka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz muuqaaladan markii ay soo baxeen kadib waxa uu barta X ama Twitter soo dhigay qoraal hanjabaada kaas oo uu ku sheegayo in ciidanka Israa'iil ay ka go'an tahay in ay burburiyaan waxa ugu yaray godadka halista ee ku yaala gudaha Gaza waxa uu sheegay godadkaasi ama tuneeladaasi in ay ahaayeen challenge-gii ama dhibtii ugu weyneyd oo ay la kulmeen intii ay dagaalka wadeen waxa uu yiri durbaba marka aanu gacanta ku dhigno la haystayaasha Israa'iil laga haystay dhanka Hamas iyo kooxaha iska caabinta ku maqan in ay weerarka qaadi doonaan godad kale burburin doonaan waxay ka dhigan tahay in heshiiska laga bixi doono marka maxaabiista la dhiibo kadib lama garanayo ujeedka hadalkiisa laakiin maxay tahay muuqaalka ka careysiyay sida aad arkaysaan waxa la arkay dagaalyahanada Hamas oo hubaysan gawaari wata oo labisan iyo dadweynihii reer Gaza oo daba orday oo mashxaradeynay taas oo Israa'iil gudaheeda la yaab ku noqotay dadkii 2 sano oo duqeyna burburi dhibaato ciidanka Israa'iil way ku guuleysan waayeen baa la leeyahay awoodda kooxaha iska caabinta inay dhulka dhigaan ama ay dhibaato weyn gaarsiiyaan inkastoo laga dilay Hamas iyo kooxaha kale madax sare oo uu kamid yahay Yahya Sinwar oo uu kamid yahay Mohammed Sinwar iyo sidoo kale Mohammed iyo rag kale oo kamid ah saraakiishii ugu sareysay haddana waxa caawa la arkay oo banaanka la keenay ayaa waxa ahayd in Gaza ay wali Hamas maamush iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Hamas ay sheegtay in dhammaan cafis ay u fudiyeen kooxihii dhibaatada ka waday gudaha Gaza gaangistaradii waan cafinay ay leeyihiin hadii ay isa soo dhiibaan qof walba oo aan dil geysanin ama dambi cid gaar u haysata ay jirin laakiin dambigi guud ay galeen oo inay ka mid noqdeen jabhadda Yasir Abu Shabaab ee u shaqeynaysa Israa'iil iyo dhammaan kooxihii kale ee tuugada ahaa ee Gaza dhibaatada ku hayay ama Israa'iil u shaqeynayay waa la cafiyo ay yiraahdeen hubka soo dhiibaan ha isa soo dhiibaan iyagana amaan ay helayaan dadkoodayna ka mid noqonayaan hadalkaas ayaa waxa looga dan leeyahay baa la yiri in la dejiyo xasiloonida iyo badqabka dadka reer Gaza si ay u helaan amaan dadweynaha reer Gaza ayaa waxa ay ku soo noqdeen goob burburtay iyo guryo aan la kala garin karin qof walba guriga uu leeyahay waxay hadda ka shaqeynaysaa wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha Gaza in wadooyinka la isku furo magaalada Gaza iyadoo sidoo kale hadda laga shaqeynayo goobihii ciidanka Israa'iil ay ka baxeen in baaritaano lagu sameeyo
taas oo ay talooyinka uu soo jeediyay Fays Adwayri oo ah qabiir dhanka militariga oo u fadhiya Al Jazeera inuu u faalayo arrimaha dagaalada bariga dhexe iyo guud ahaan dagaalada militariga caalamka. haddaba xaaladda guud Gaza waxa leeyahay dadku waxay caawa heleen raashin inkastoo wasaaradda caafimaadka Gaza ay leedahay xaaladda bani aadamnimo wali Gaza way liidataa marka la eego dayaca iyo dhibaatada iyo adeega caafimaad ay dadku u baahan yihiin iyo guud ahaan burburkii labada sano ee gaaray Gaza marka la eego wali nolosha dadka aad bay u liidataa. raashin waa uu soo galay ku dhawaad 400 oo gawaari kaalma ayaa lagu waramayaa maanta oo kaliya marinka Gaza inay soo gashay laakiin wali dadku waxa ma haystaan raashin daawo ku filan waxa u baahan in dib loo dhiso waxa loo yaqaano infrastructure-ka ama kaabayaasha sida wadooyinkii isbitaaladii iskuuladii dhammaan waa ay burbursan yihiin waxay u baahan tahay in dib loo dhiso inkastoo hadda rajada ay aad u wanaagsan tahay oo dadka reer Gaza heshiiskan hordhaca oo ama wajigii koowaad lagu heshiyay Hamas iyo Israel ay keentay inay dadku dib ugu soo noqdaan guryahooda haddana wali xaaladu ma ahan mid sahlan way aynu toos ugu gudubno qodobka xiga barnaamijka iyadoo uu noo soo socdo muuqaalka aabaha reer Gaza ee gurigiisa dib ugu soo noqday oo sheekayab laan idinkaga hayo waxaan sidoo kale macluumaad idinkaga hayo oo qaybta dambe ugu tagi doonaa heshiiskii Hamas Israel ee ka socday Sharm el-Sheikh intuu maraya Iran baaqi loo diray way ka soo jawaabtay ee Donald Trump uu ugu baaqay inay shirka qayb ka noqoto iyadoo faahfaahsan baan idin hayaa laakiin aan u gudubno dagaalka ka dhaxeeyo Afghanistan iyo Pakistan ama Taliban iyo dawladda Pakistan xuduudda ay isku dagaaleen labada dhinac sanad bilihii la soo dhaafay Taliban iyo Afghanistan way isqoonsanaayeen laakiin markan waxa ay noqotay mid ay fooda isdaraan iyadoo labada dhinac dagaalkooda hadda uu marayo meel aad u daran oo ay isku gubeen saldhigyadii ugu muhiimsanaa labada dhinac ciidamada dalka Pakistan ayaa lagu waramayaa in ay burburiyeen ama diyaaradaha Pakistan ayaa galabta burburiyay ama duqeyn ku burburiyay saldhigga ciidanka Afghanistan ee loo yaqaano Asmatullah Karar oo ku yaala magaalada Kandahar kaas oo lagu sheegay saldhigga ugu muhiimsan ee ciidanka Afghanistan ay ku lahaayeen deegaanada xuduudda u dhow iyadoo Pakistan ay sidoo kale ku sheegtay saldhiggan inay adeegsan jireen kooxda TTP oo toddobaadkii hore fulisay weerar askar badan looga dilay ciidanka Pakistan tirada la sheegay xilligaasi in laga dilay ciidanka Pakistan ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 850 ka tirsan militariga dalkaasi Pakistan. Afghanistan dhinaca kale waxa ay sheegtay in ay weerartay saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin dawladda Pakistan oo ay gabi ahaanba burburisay haddaba dagaalka waxa uu qaraaraaday markii la dilay 850 ka ciidanka Pakistan haddaba in yar ka hor waxa war soo saartay dawladda Taliban ee adduunka uusan wada aqoonsanayn waxayna dawladda Taliban sheegtay gaar ahaan wasiirka gaashaandhigga in Talibaniintu ay diyaar u yihiin in dagaalka la joojiyo waxaanu ku sababeeyay joojinta dagaalkaasi in ay tahay kadib markii dawladaha Sacuudiga iyo Qatar uu sheegay inay soo dhaxgaleen oo ay baaq u direen labada dhinac Pakistan iyo Taliban inay joojiyaan dagaalka lama garanayo in joojinta ay ku dhawaaqday in Taliban kaligeed inuu ahaan doono in Pakistan iyana dhankeeda ay joojin doonto dagaalka laakiin labada dhinac dagaalkooda waxa la sheegay inuu hadda ahayn dagaal iska caadi u dhacay ama la tuhunsan yahay inuu yahay dagaal siyaasadaysan oo markaa dawladda banaanka ay ku lug leeyihiin waxaana la sheegay hadda dagaalka hadii uu sii socdo in uu noqon doono dagaal weyn oo saameyn ku yeesho labada dhinac dhanka kale Afghanistan ayaa sheegtay inay iyada dhankeeda bartilmaamsatay si lamid ah sida Pakistan ay u bartilmaamsatay saldhigga ku yaala Kandahar waxay leedahay annagana waxaan beegsanay saldhig military oo ay leedahay Pakistan waxa wali socda hadda isweydaarsiga madaaficda u dhaxaya labada dal Pakistan ayaa sheegtay in weerarkii xalay ay ku dishay iyana 52 dhanka kale Pakistan waxa ay qiratay in laga dilay askar gaaraysa 850 askari
iyadoo dhanka kalena ku dhawaad 200 oo askari in ay sheegtay inay ka dishay dhanka Taalibaaniyiinta. lama ogo sida uu dagaalkan ku soo afjarmi doono iyo inta uu gaari doono, laakiin waxa la sheegay inuu yahay dagaal khatar weyn u leh labada dhinac. Taalibaaniyiintu waxa la sheegay inay khatar ku yihiin dagaalka dhanka dhulka ah, laakiin aysan lahayn awood dhanka cirka ah iyo sidoo kale hubka ay haysato Pakistan inaysan haysanin isku awoodna ahayn. laakiin waxa lagu waramayaa haddii dagaalka uu noqdo mid Pakistan ay sii dheerayso inay ku noqon karto Taliban sidii jabhad gudaha Pakistan ka dhalato oo markaa xasilooni darro aan dhammaanin weligeed dalka Pakistan ku keeni karto qaraxyo iyo dhibaato iyo halis weyn oo deganaanshaha Pakistan baabi'iso ayay keeni karaan Taalibaaniinta, ayadoo Pakistan ay awood u leedahay haddii ay sii garaacdo in Taliban militarigeedii oo dhan ay baabi'in karto oo ay dhulka dhigi karto marka la eego awoodeeda. aabba reer Gaza ayaa ka mid ahaa kumanaan kun oo dadka Falastiiniyiinta ee ka qaxay guryahooda marinka Gaza kadib markii ciidanka Israa'iil muddo ku dhawaad 2 sano halkaas ay qaraxyo iyo weeraro ay ka wadeen. aabbahan waxa uu deganaa waqooyiga marinka Gaza, waxa uu ka tagay gurigiisii oo uu dhistay oo qurux badnaa. markii uu soo noqday waxa uu filayay gurigiisa in uu ka mid yahay guryaha dhulka galay ee baaba'ay, isagoo murugaysan oo arkaya wadadu maraba in Gazadii uu garanayay iyo waqooyiga Gaza inaysan ahayn oo magaaladu ay burbursan tahay. muruga ayaa arrintaa ku ahayd, sida Al Jazeera ay tabisay. aabbahani waxa uu ku cararay dhinacii gurigiisa uu jiray. waxaase la yaab leh guriyihii ku hareereysnaay oo dhan inta badan waa ay burbureen, laakiin gurigiisii waa uu taagan yahay si cajiib ah, isagoo qaylinayo ayuu sujuuday ilaahayna u xamdinayo. waxa cajiib ah albaabkii xitaa waxba ma gaarin guriga, xitaa albaabkii garaafa ma gaarin. guriyihii kale mid kor ka dudumay, mid geesaha ka burburay, kuwa dhulka galay oo aan la garanayn. ganjaalkii ama albaabkii laga galayay ayaa sidiisii ugu dhisan, gurigiisii waxba ma gaarin. markaasuu ilaahay ku shukriyey oo uu sujuuday oo uu ku celiyey oo ilaahay u mahad celiyey. waayo gurigaagii in lagaa burburiyo, meeshii aad degaysa lagaa burburiyo, reerkaagii la baabi'iyo, deegaankaagii la baabi'iyo, meel aad degta aadan aqoon waa dhib, dhaqaalana aadan haysan. ila maanta qof reer Gaza oo dhaqaale haysta ma laha, ganacsi ma jiro, dhaqaale ma jiro, hooy ma jiro, nolol ma jiro. wixii oo dhan inta nool kaalmo laga keenay dibadda ay ku nool yihiin. macnaha macaanida amniga iyo xurriyadda dadka reer Gaza wax laga weydiin. amni hadduu macno leeyahay, qiimaha hadduu leeyahay, reer Gaza wax laga weydiin. amaan darro xanuunka ay leedahay iyaga wax laga weydiin. in cadow ku dul taagnaado oo lagu dhibaatay gurigaaga la burburiyana reer Gaza wax laga weydiinaya, iyaga garan kara macnaha. muuqaalka aabbahan marka aad buu dadkii u saameeyay, aad baa la isula dhex maray. macnaha qofka waxa uu haysto intuu haayo oo loo daba taagnayn wax weyn uma arka, laakiin maalinta uu waayo ayuu garan karaa. wanaaga caafimaadka iyo ay leedahay dadka isbitaalada ku jira garan karo. nolosha macaanideeda in dib la isu celiyo ahlul qubuurka garana, laakiin ma ku sheegi karaan. xurriyadda reer Gaza garan karo, iyaga arkay dhibaatada ay leedahay 2 sano oo aan kala go' lahayn. waayo qodobka ugu dambeeya barnaamijka walaalaha qiimiga leh, magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaa la filayaa in dhawaan lagu soo gabagabeeyo shir la sheegay inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dagaal 2 sano Xamaas iyo Israa'iil dadka reer Gaza looga burburiyo hantidooda. waxaa la filayaa shirkaasi inay ka qayb galaan madax waaweyn oo caalam ka socdo oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Mareykanka, dalalka Turkiga, Qatar, Sacuudiga iyo kuwa kale. waxaana dhanka reer galbeedka ka imanaya ra'iisul wasaaraha Britain, Spain iyo kuwa kale oo dhammaan la sheegay inay ka mid noqon doonaan martida bari ka qayb gali doonto shirkaasi iyo gabagabadiisaba. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in shirkaasi ku casuumeen dalka Iran inay qayb ka noqoto heshiiskaas. inkastoo Iran Mareykanku cunaqabateyn u saaray Iran Israa'iil dagaal uu kala dhaxayo, inay jirto dood hadda oranayso waxa suurtagal ah in Israa'iil iyo Iran ay weerarto. ugu dambeyn Iran maanta way soo jawaabtay, waxayna sheegtay inaysan ka qayb galin shirkaasi, diyaarna aysan u ahayn. wax sabab kale ma raacinin, way diiday inay shirkaasi timaado. haddaba berri maxaa dhacaya? sida la filayo
ilaahay baa garan kara waxa dhici karo laakiin sida loo qorsheeyay ee hadda iyagu ay ka hadlayaan waxay tahay bari aroortii hore warbaahinta Israa'iil baa qorayso bari aroortii hore waxa Israa'iil lagu wareejin doonaa 20 dadka nool ah maxaabiista laga haystaa loo dhiibi doonaa Falastiiniyiintana waxa la rajeynayaa qaybtii ugu horeysay 2,000 oo reer Falastiin oo ay ku bedelanayaan 20 kaas qof ee nool in loo soo wareejiyo bari la dhiibo bari marka waa maalin weyn waxaana la filayaa heshiiskan inuu noqdo heshiis gabi ahaan dagaalka lagu soo afjaro iyadoo qorshaha uu yahay sida la sheegayo in Gaza la keeno ciidamo caalami ah oo ka kala socda dalalka Turkiga, Masar iyo Sacuudiga iyo kuwa kale inkastoo Sacuudiga wali uusan xaqiijinin inuu diyaar u yahay laakiin Imaaraadka ku jirto waa Imaaraadka Turkiga wadamada diyaarka Masar iyo kuwa kale oo dhamaan la sheegay in la doonayo in ammaanka Gaza lagu ilaaliyo kadibna lagu wareejiyo dawlad Falastiiniyiintu leedahay qodobada aan wali la isla meel dhigin waxa kamid ah in Hamas hubka ay dhigayso in kale inkastoo ay diiday waana meesha Israa'iil ay ku adkaysanayso haddaan bari qodobadaas meel la dhigin heshiiskan mugdi badan iyo shaki badan ayaa soo gali karayo sida ay qubarada leeyihiin inta ayaynu ku soo xiranaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyada ee bahay dushiina ha ahaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.